أصحابي soo dhawaada ku soo dhawaada channelkii Fatax Abuukar madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtii uu dalada joogay dalka ama uu madaxweyne ka ahay Soomaaliya siyaasadeedii arrimaha gudaha waxay ahayd mid degan arrimaha dibaddana runtii mid degan oo Soomaaliya dawladaha xiriirka ay leedahay diblomaasiyad dhamaantood ixtiraamo qadarin iyo sharaf iyo karaamana u hayo ayay ahaayeen Soomaaliyana ma aysan ahayn dal ku dhex milmo muranka iyo doodaha iyo iskahorimaadka dawladaha u dhaxeeyo oo waxay ahaa jirtay dawlad ka fiirsato maqaamkeeda iyo miisaankeeda siyaasadeed aad u ilaaliso ayay ahayd maxamed cabdullaahi farmaajo xilligiisii ama waqtigii oo ka talinayay dalkan Soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda runtii siyaasaddu waxay ahayd xasilan ku dhisan isqancin wada tala wadaag muxuu ahaay dawladaha iskaashi u dhaxeeya labada dawladaha muxuu ahaay Soomaaliya xiriirka ay leedahay si xushmad leh oo ku dhisan muxuu ahaay wax dhaafsi ayay runtii ay ku macaamilayeen Soomaaliyana aad loo ilaalinayay madax banaanadeeda iyo jiritaankeeda Soomaalinnimo iyo qarannimo Soomaaliyana waxay ahayd dal madax bannaan oo runtii muxuu ahaay qab leh oo maaragtay muxuu ahaay siyaasad ahaan madax bannaan oo runtii madax bannaanidaas ayaa keentay in dawlado badan ay ku ixtiraamaan Soomaaliya waxaana sabab u ahay madaxweynihii xasan sheekh ka horeeyay maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii ku amaanan aan dhihi karo muxuu ahay wanaagii iyo dadaalkii uu geliyay diblomaasiyadda maadaama uu ahay madaxweyne degan fahamsan diblomaasiyaddu dhankay u socoto waxa maaragtay fashilka diblomaasiyad keeni kara ayuu aad iskaga ilaaliyay dal kastana wuxuu la samaystay xiriir iskaashi oo dhow oo ku dhisan is-ixtiraam isqadarin wax isdhaafsi iyo muxuu ahaay iskaashi dhaqaale mid amni iyo mid siyaasadeed dalna ma uusan ogolaa jirin farmaajo inuu maaragtay saameeyo ama uu faraha la soo galo siyaasadda Soomaaliya asagana dawladdiisii markaas ma uusan ogoleen inay ku dhex milanto quwadaha is haysto oo aysan runtii dan ugu jirin markasta oo iska hor imaad dhaco ama dawlado muran u dhaxeeyana waxay ka fiirsan jirtay oo wuxuu ahaa jiray farmaajo nin markasta oo miisaamo waxaana kala weynaa farmaajo danta shakhsiga waxa kala weyneed danta qaranka taasaana keentay in diblomaasiyaddeenu macno yeelato xilligiisii arrimaha gudaha waddankana oo macno yeesho haddaan idin siiyo tusaalayaal cadcad asxaabay farmaajo waa ninkii keenay Soomaaliya in hawadeeda ay la wareegto oo maanta hawadeeda ay maamusho oo maanta aad arkaysaan yuhuudii aqoonsatay Somaliland hawada Soomaaliya inaysan ku dhiira karin isticmaasho laakiin Ethiopia inta ka degto ay wajah leh halkaas ay ka gasho oo xuduudda ka gasho oo dhulka ay marto farmaajo waa ninkii keenay in Soomaaliya laga cafiyo 4.5 billion dollar iyo wax ka badan oo deyn ahay oo lagu lahay Soomaaliya una sahlay in Soomaaliya ay qaadan karto muxuu ahay ay maalgelin shay raadsan karto iskaashi dhaqaale la samaysan karto hay'adaha caalamka farmaajo waa ninkii ka shaqeeyay ama madaxweynihii ka shaqeeyay in ciidanka Soomaaliya ay helaan tababaro dhameystiran iyo qalab dhameystiran ciidankana oo ku tababaray Ethiopia, Eritrea iyo Turkiga ay tababareen ciidan tayo leh muunad qaran leh dhisan qalabeysan ku qalabeysan xirfad iyo karti iyo feejignaan oo runtii difaaca dalka si wanaagsan u hanan karay hadday noqon lahayd gudaha dalka iyo dibadda dalka maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii hirgeliyay in ciidanka Soomaaliya ay maraan systemkan loo yaqaano biometric oo ciidanka la diiwaan geliyo oo la kala hufo oo hanaan iyo system maaliyadeed loo sameeyo oo lacagta ay u soo dhacdo ciidankana si joogto ah bil walba koodeeda ama ka hor ay mushaarka u soo dhici jirtay oo ciidanka Soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa qanacsan ku faraxsan dawladnimada u heelan difaaca dalka iyo shacabka badbaadintiisa markastana dawladnimada muxuu ahaay iyo calanka Soomaaliya iyo astaanta Soomaaliya inay sareyso u taagan ayay ahaayeen maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii ka shaqeeyay in qaramada midoobay Soomaaliya ay ka qaado cunaqabateyntii hubka awoodna u siiyay Soomaaliya inay maanta hub soo dejisato diyaaradana ay soo gadato ay kula dagaalanto cid kasta oo Soomaaliya ay u aragto cadow hadday noqon lahayd kuwa hadda ay la dagaalayso ay ka soo horjeedo oo maaragtay muxuu ahaay dawladda ku kacsan iyo xubnaha kale iyo dadka kale ama ay u aragto muxuu ahaay inay cadow ku yihiin Soomaaliya oo ay u horeysay nimankan nabadiidka marka waxaas oo dhan oo wanaag ah waxaas sare u kacay sumcadda baasaboorka Soomaaliya xilligii maxamed cabdullaahi farmaajo
ولو هذا ولي نفتي كذا باسبورك سمعتي سي حوغا ولي هذا ليدته لكن بريغاس فرماجو جوي سمعت باسبورك Soomaaliya kor ay u soo kacisay astaanta qarannimada Soomaaliya ayaa kor u kacday Soomaaliya waxay gaartay isu filaasho iyo madax banaani siyaasadeed waxayna xiriir la sameysatay dawladaha caalamka maxamed cabdullaahi farmaajo waa ninkii dhisay hay'adaha dawladda hormariyay hirgeliyay sharciga maaliyadda dalka in la ansixiyo waa ninkii horgeeyay baarlamaanka guddiga doorashada inay meel mariyaan wuxuuna runtii farmaajo ku taagnaay inuu dalkan geeyo doorasho qof iyo cod ah laakiin nasiib darro waxaa hor yimid kacdoon ku dhisan qabiilaysi oo runtii haweenimo ninkan waa daarood annagana hawiyaan nahay dalkii daarooda qabsaday dhibaato ku wada iyo wax aan jirin ayaa nalku kiciyay oo qabiil ayaa nalku kacshay haddana shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiintii ayaa ku kacshay wariyaashii iyo cid walba waxay isticmaashay magaca qabiilka oo abaabulan taasaana keentay in farmaajo markuu arkay in waxa looga soo horjeedo ay tahay wanaagga oo wado iyo dalka jihada oo wado loona isticmaalayo shaati qabiil wuxuu gartay marka in dalka dhibaato inuu galo oo burbur galo inay ka wanaagsan tahay inuu asiga oo shakhsi ah tanaasulo wanaagii Soomaaliya oo qabtay ama uu qaban karana oo qabtay wixii kale oo uu qaban lahaa in waqtigeeda oo la eegto oo ilaaliyo jaanis kale fursad kale oo soo marta oo dalkan ku gaarsiiyo horumar siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid xasilooni runtii farmaajo waa ninkii dhisay hay'adaha dawladda institutionska dhammaan maantana waxaan idin sheegaa Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii maanta naruurada yarta aan haysano ee dhanka diblomaasiyadda ninkii keenay ee hirgeliya waay haddaad ogtihiin dhanka ciidanka saraakiisha joogtay waa ninkii waa madaxweynihii hirgeliyay maanta saraakiisha ciidanka ay ku dhisan yihiin oo runtii macnaha iyo muunada ciidanka u yeelay ninkii magacaabo waay waxaad ogtihiin diblomaasiyadda Soomaaliya maanta waxaa horboodayay Abuukar Baalle oo khudbad muhiim ka jeediyay golaha ammaanka taasoo kula diriraya yuhuudda haddaad ogtihiin ciddii magacawday Abuukar Baalle oo magacawday qaramada midoobay wuxuu ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo kuma oosan xulan qabiil ku qabiil maahan waa nin maaragtay hawiya waa nin xawaadla Abuukar Baalle farmaajana meel iska soo galaa ma jirto laakiin waxaa ku kaliftay inuu magacaabo aqoonta iyo kartida oo ku ogaayay iyo sida Soomaaliya diblomaasiyadeedii oo meel dheer u gaarsiin karo iyo farmaajo ay ka go'oneed inuu dalkan diblomaasiyad xasilan oo ku dhisan iskaashi iyo dan wadaag oo helo oo aan lagu xadgudbin madax banaanida siyaasadeed iyo jiritaankiisa umadeed taasaana keentay runtii farmaajo inuu ka taxadiro cidda uu geynayo diblomaasiyadda haddaad ogtihiin safiirada xilliga farmaajo safaaradaha joogay iyo diblomaasiyiinta joogay waxay ahaayeen dad macno leh diblomaasiyadda Soomaaliya runtii dhaqaajiyay waxaad ogtihiin xilliga farmaajo inuu ku guuleystay in baddi Kenya ay soo dhamaacisay oo runtii kaga adkaaday dood ku dhisan aqoon iyo xirfad oo keensaday looyaro ku takhasusay arrimaha badda Kenyana loo sheegay in intaasoo nautical mile ay soo gashay badda Soomaaliya sidaas darteedna ay khatar ku tahay international maritime lawga sharciga badaha caalamka that's why marka Kenya looga raayay iyadoo la isticmaalay diblomaasiyad iyo aqoon-yahano ku huwaysan aqoonta sharciga caalamiga iyo sharciga badaha taasaana keentay runtii aakhirkii in lagu kala baxo sifa sharci iyo aqoon maxamed cabdullaahi farmaajo waxay xilligiisii dadka diblomaasiyadda horboodaya waxay ahaayeen dad fahamsan diblomaasiyadda macno weyn ay u leedahay muhiimadana ay kala weyn tahay runtii maaragtay muxuu ahaa jiritaanka qarannimada Soomaaliya iyo danaha shakhsiga meel iska dhigay ee u taagnaay midnimada ummadda Soomaaliyeed wuxuuna u sheegi jiray dadka diblomaasiyadda hogaamiyo in la ilaaliyo madax banaanida iyo jiritaanka Soomaaliya danaha shakhsiga meel iska dhigo markasta laga hormariyo danta shakhsiga danta qaranka taasaana maaragtay qof walba wadan ugu jirto horumar iyo barwaaqana lagu gaari karaa saasoo dhihi jiray taasaana keentay runtii in waxaasoo wanaaga hadda aan soo sheegay oo ay ku jirtay dinacafintii oo ay ku jirtay in Soomaaliya ay kaga raysay Kenya dhanka badda iyo in muxuu ahay la aqoonsado Soomaaliya oo deyntii laga cafiyo in Soomaaliya baasaboorkoodii sare u kaco iyo in sharciga maaliyadda la hormariyo iyo in ciidankeenu ay yeesho muunad qaran oo tababar fiican helo mushaaraad fiican helaan magaalada ay xasilan tahay oo ay degan tahay maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynaha aan dalkan hantina ka dhicin dhulna ka boobin ee dhulkii dadka danta guud ilaaliyay ee waliba maaragtay agoontii booliiska Soomaaliyeed ay ka dhinteen iyo maaragtay naafadii Soomaaliyeed ilaaliyay xuquuqdoodii ee aad u daryeelay ee dadkii dalka usoo halgamay ee booliiskii ahay saraakiishoodii oo agoontii ay ka tageen
gacan ku hayay ee ka warqabay runtii ee dhulka danta guud ilaaliyay markii uu xilka wareejinayeen waad ogtiin Soomaaliyeed hantida oo wareejiyay iyo xataa qalabkii dawladda Soomaaliya loo keenay ee ahaa lahayd saafihii dahabiga ahay iyo dhulkii danta guud oo dhammaan isku xiran oo yiri madaxweyne iga qabo waatana oo ku wareejiyay madaxweynaha hadda talada hayo Xasan Sheekh Maxamuud waa kana dhulkii danta guud waa maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynihii madaxda dalkan oo u magacaabay xilalka ilaa wasiirka arrimaha dibadda ilaa wasiirka maaliyadda oo ogtiin Beyle doorad inuu sheegay madaxweynihii dhahay madaxda xilalka hayso dhammaan waa inaan sameeyaa hantidooda waa inaan baaraa oo mid kasta aan ogaada hantida hadda oo haysto si bari markaan xilka wareejinayno aysan u imaan eedeen iyo musuqmaasuq iyo ku-tagrifal maaliyadeed qof kastaana hantidiisa uu xisaabiyey waxa uu lahay hanti ma guurtaa iyo mid kaleentaba si loo ogaado in qarankan qofkan oo hanti ka dhacay iyo in kaleento taasaana keentay runtii daahfurnaanta iyo suulaanta beesha caalamka ee aad u danaynaysay oo ay ku jecleed maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaad ogtihiin maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynihii qabkii iyo qarannimadii Soomaaliya soo celiyay ee aan marnaba shisheeyaha ama ajnabiga madaxiisa hoos u raaricin ee madaxiisa kor u taagnay ee kula dhaqmi jiray iskaashi iyo dano aan wadaagno laakiin ma faragashay kartid siyaasadeena gudaha mana ogolaanayno inaad ku xadgudubto siyaasadeena arrimaha dibadda maxamed Cabdullaahi Farmaajo slogankiisa saas ay ahayd ama halkudhigiisii waana runtii faa'iido badan oo Soomaaliya u keentay oo maanta Soomaaliya dadka macnaha leh ee diblomaasiyadda horboodaya sida uu Karbaalo oo kale waa dadkii Farmaajo oo soo xulo waay shalay haddii Farmaajo soo xul lahayn maanta Soomaaliya godka ay ku dhacday waa ku sii dhici lahayd god ka daran okay Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynaha wanaaggaas leh ee saas dalka u badbaadiyay ee haddii ay noqon lahayd gudihii dalka ee badbaadiyay dibaddiina badbaadiyay laba gacanna runtii ku dagaalamayay gacanna cadawga iskaga celinayay gacanna dalka ku dhisayay siyaasaddii gudaha iyo siyaasaddii dibadda ilaalinayayna ciddii ku xadgudubta madax banaanida iyo jiritaanka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed waxaan ognahay marka maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib waxaan dhaxalnay musiibo waxaan dhaxalnay dalkii inuu kala tago waxaan dhaxalnay in intaas hadda aan soo sheegay oo wanaag waxay ahaayeen dhaxalkii Farmaajo okay Farmaajo dabadiis maxaan dhaxalnay haddaan Soomaali nahay halaag iyo hoog iyo ba iyo jab ayaan ugu dhacay dadkii Soomaaliyeed waa kala tageen waa kala irdhoobeen waa kala boodeen maalinba meel lagu duulaa iska daa arrimihii gudaha arrimihii dibadda khatar ku jirto oo maanta dawladdu waxay ku mashquulsan tahay inay hadba dawlad ku cararto ay codsi hor dhigato ay tiraahdo difaaca qarannimadii iyo midnimadii iyo jiritaankii ummadda Soomaaliyeed dalkiina qayb ka midana la aqoonsaday oo go'ay qaybihii kalena ay ku soo socoto aqoonsi in la siiyo oo Soomaaliya ay tusbax furato kale ay noqoto maanta oo saa ay kula daadatay oo diblomaasiyaddii maanta ay gud ku dhacday mugdiga ay ku jirto maanta Soomaaliyana weligeed aysan ku dhicin runtii dadkii waxaan si aad ugu xumahay shalay siyaasiyiintii noo durbaan tumayay ee dhahayay hawiye ahaan noo kiciyay runtii muxuu ahay dhiigga biyo maahana dhahay noo isticmaalay naga dhigtay janjar na kacsa maaragtay muxuu ahay na abaabulay maanta ama dadka horboodaya inay maanta yihiin kuwa ugu liita dadka Soomaaliyeed mid kastaaba musiibo ay meeshiisa ku haysato murug oo dhamaanada la haysto fikir iyo walaahow oo ku jiro dhulkiisii la dhacay ama la baway mid dalka ka qaxay iyo mid murugo hayso iyo mid loo diiday ama dhibaato ay ka haysato sida dalkan siyaasadiisii oo u geys meel sare u gaarsiisa lahay oo isbaarooyin loo dhigtay ay ku jiraan waxaan ka xumahay hooyooyinkii shalay la isticmaalay ee la kiciyay ee loo isticmaalay shaatiga dawladda inay maanta homeless yihiin oo guri la'aan ay yihiin oo guryahoodii la boobay oo maaragtay banaanada ay jiifaan oo ay yaaban yihiin oo habaaramayaan waxaan ka xumahay askartii shalay Soomaaliyeed ee loo adeegsaday badbaado qaran laakiin shaati dawladeed loo hoos gashtay loo babiyay calanka ee la yiri waa lagu soo duulay dalka daarada lagu duulay laakiin hawiye ahaan loo kacshay maanta inay yihiin kuwa dhiban ay yihiin mid dalka ka carray mid jabay oo jiisay mid dhaawac oo cid daryeesha uusan jirin iyo mid mushaar la'aan meel la jiifo ee dhiban ee ilmihiisii la barakiciyay ee banaanka loogu daadiyay asna la yiri difaaca qaranka u taagnaa ee xuduudaha tag maaragtay cadawga la dagaalan waa nasiib darro inteeda la eg Soomaaliyeed waxaan la filanayn runtii waa shalay iyo hoog 4 sano oo ay 4 bilood ka dhiman tahay oo hoog iyo halaag oo ba iyo jab oo la ba'ay oo la hoogay oo runtii wax wanaag iyo wax horumar aysan dhaqaaqin oo wixii wanaag ahaa loo qabtay oo dalkan lahay dib loo baabi'ay oo loogu tuntay oo dana shakhsi loo isticmaalay oo maanta dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed laba qof oo isfiiri karto ama wada hadli karto aysan jirin madaxweynihii markii aan
codsi u bandhignay oon dhana madaxweynuhu la hadal dadkii kaa horjeeday oo la fadhiiso oo tala soomaaliyeed soo jeedi oo oday soomaaliyeed noqo oo soomaali isu keen oo geed fadhi u noqo oo talada dhexda dhig oo tanaasul oo adiga noqo qofkii dadka soomaaliya u tanaasuli lahay maadaama aad tahay odaygii soomaaliya hogaaminayay in maanta madaxweynihii oo ka doorbiday inuu ku cararo madaxweyne sheekh shariif oo abgaalnimo uga cararo iyo qabiil waa foolxumo inteeda la eg waa dhibaato inteeda la eg runtii meeshaan sugaynay in madaxweynaha tala soomaaliyeed oo la yimaado iyo aragti soomaaliyeed oo yidhaha war soomaali meel kastoo joogto kama maarmo cid aan ka maaran ma jirto miiska wadahadalka aan isku imaano oo la heshiiyo walaalihiis puntland walaalihiis jubbaland talada dhexda soo dhigo mucaaradka la heshiiyo soomaali la heshiiyo yidhahdo walaalayaal kaaliya aan tashano aan wada hadalno aan isqancino tabashidina diyaar inaan dhegeysto wixii teeda dhegeysta aan isqancino aan doodno si sareexa la aan kaftano aan tartan wada galno ciddii adkaatana aan isugu hambaleyno si daah furan oo xalaal ah oo niyad saman oo niyad saafiya leh oo isku calool furannahay oo isku laab xaarannahay aan ku galno aan iscafino wixii qaladoo shala dhacay waa dhaceen aan ka raali noqda aan iscafino hadda iyo dan inuu yidhaha madaxweynaha ayaa la rabay oo qofka bini'aadamka haddii ilaahay u toobad keeno oo ilaahay u aqbalaa toobada inuu farmaajo inuu madaxweyne xasan sheekh na soo hor fadhiisto oo na weydiisto cafis oo wixii uu dhib geystay aan ka cafino oo runtii hadda iyo dan wanaag wax soomaali ay leedahay iyo dan soomaaliyeed oo ka shaqeeyo ayaan rabnay laakiin ma filayn inuu walaalkiis in adeerkiis ku cararo oo qaab qabiil u ciirsado oo yidhaha kaalay aniga adaa isku abgaal ah kaalay qaab qabiil ila abaabul kaalay garab gal kaalay garbahey istaag kaalay ii shiri soomaali ma aanan filayn horto iyo in safaaradihii oo in cadaaladiis geysto oo abgaalkooda dhigto runtii ma aanan filayn oo diblomaasiyadii u dhiibto runtii ma aanan filayn wax la filayana ma ahan marka soomaaliga waa ujeediin sida xaalku uu yahay maanta waxaa loo baahan yahay badbaado waxaan isdhihi lahay aniga haddaan arkay maxamed cabdullaahi farmaajo boqolkiiba boqol madaxweynihii hadda ku habboonay dalkan inuu badbaadiyo oo samate bixiyo waaye cidna shaki ka geli maayo shaki igama jiro boqolkiiba boqol inuu yahay farmaajo madaxweynaha soo celi kara maanta qarannimada jabtay ee hoogtay halaagtay diblomaasiyadda godka ku dhacday ee ku socoto madaxweynihii kasoo qaba lahay ee istaaji lahay maqaamka soomaaliya ee qabkii soomaaliya soo celi karo ee iftiinkii soomaaliya soo celi karo ee ka dhigi karo soomaaliya macno leh ee caalamka la jaan qaado ee lagu ixtiraamo golaha ammaanka ee maaragtay muxuu ahaa sharaf iyo karaamo ku yeelato inuu yahay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaadna ogtihiin farmaajo dhaxalkii uu ka tegay waa maanta in soomaaliya ay ku fadhiso kursiga golaha ammaanka bishan January ay ku fadhi doonto oo rabaale iyo ergadeeni ay halka fadhiyaan oo maanta ay ku sharfan yihiin cidda ka shaqeysay wuxuu ahay maxamed cabdullaahi farmaajo dhaxalkiisii uu ahay laakiin nasiib darro waxa ka dambeeyay ayaa waxay noqdeen hoog iyo halaag ba iyo jab oo runtii dib ugu ciyaaray wixii oo dhisay dudumiyay runtii dadkii shalay Soomaaliyeed ee farmaajo kula diray qabiilka muxuu ahay kaga soo horjeesta qabyaaladan maanta waxay taagan yihiin shalaytan waxayna ogaadeen inuu farmaajo ahay wadani dhab ah inuu farmaajo ahay siyaasi daacade inuu farmaajo ahay diblomaasi dhabe inuu farmaajo ahay hogaamiye dalkan iyo dadkan isku wadi karo isku hay karo u dhaxeeyay aan cidna la safan cidna taageerin horumarka Soomaaliya ku taagnay muxuu ahay shalay waa ogeedeen Soomaaliya markuu farmaajo tababarka u qaaday ciidanka in la dhahay Eritrea ciidanka joogay waa ay dishay waa ay leysay ayagoo tababaran waa kuwa maanta joogo ee xarumaha dawladda ilaalinaya ee madaxda la socdo dhaxalkii farmaajo waa kaas Abuukar Baale maanta qaramada uu ku fadhiyo oo kursiga ammaanka golaha ammaanka Soomaaliya maanta ay hayso ay noo fadhiso waad ogtihiin maanta dhaxalkii farmaajo inuu yahay hubka ama deyn cafinta Soomaaliya inay maanta Soomaaliya leedahay markii deynta laga cafiyay inay diyaarada leedahay ayada Soomaaliya ay leedahay oo madaxda lagu qaado oo ku howlgallada weerarada qaado oo hormuudka ah oo saaxiibada caalamka la weerar tago oo la duulo waa kaas ciidanka Soomaaliya maanta ay leeyihiin diiwaangelin oo mushaaraadka system la og yahay oo uu soo dhaco waa kaas shaqaalihii dawladda ee nidaam ay lahaayeen laakiin mar dambe laga dhigay musuq oo lantii nijeclaysi iyo kooxaysi lagu kala jiitay oo lagu kala riixday waa kaas maanta Soomaaliya muxuu ahay deyntii laga cafiyay ee maalgashi shay raadsanayso saaxiibo caalami soo jiidanayso ganacsiyo caalami soo jiidanayso ixtiraam haysato horena u socoto waxaa soo wanaagay madaxweynaha qabtay saas wanaaga dalka u dhisay ee doorasho guddiga doorashada hormariyay ee sharciga maaliyadda dalka ansixiyay ee guddiga doorashada ansixiyay ee rabay inuu dalkan gaarsiiyo doorasho manfuud ah ee gobolka Banaadir rabay inuu senataro siiyo oo runtii maqaamka gobolka Banaadir ilaaliyo ayaa laga hortagay qaab abaabulan oo qabiil ah ayaana u hortagnay laakiin waxaan ka xumahay waan ana ka raali gelinahay farmaajo ana siinay raali gelin waxaan leeyahay farmaajo raali noqo ma mudneen in lagu mudaharaado ma aadan mudneen in lagu banaan baxo ma aadan mudneen in
waxaad ahayn lagugu tilmaamo dadkii shalay kula diriray maanta shalaytan ay taagan yihiin hooyooyinka shalay kula diriray maanta homeless waaye bannaankay jiifaan weli saasay tahay adigayaa weli u taagan oo ka naxayo oo markaad dalka kusoo noqotay waxaad sheegtay baahidoodaad ka hadashay iyo duruuftooda waxaad tiri dalka baahiyaa ka jirto dadku hal waqti wax cunaan waa dhiban yihiin hoy ma haystaan xaaladaha iyo duruufa adagaa soo wajahay saa u sheegto waaye waa run xaqiiqda jirta waaye kuwii shalay adiga kula diriray ee la adeegsaday ee shaatiga dowladda loo adeegsaday waa kuwa homelesska ee maanta jidadka jiifo ee guryihii lagala baxay farmaajo shalay kuwii siyaasiyiintii dhafarka kaa toogtay ee ku riixay ee qaab qabiil ku riixay waa kuwa maanta dhabanada haysto ee yaaban ee la leeyahay ma shiri kartaan isuma imaan kartaan ee ciidanka loo daabulaayo ee la xanibaayo oo cunaqabateyn la saaray ee dhan kasta laga xanibay ee la yidhi ma shiri kartaan isma warsan kartaan hotel ma tegi kartaan jid ma mari kartaan cadibala ma wada kartaan ciidanna ma qaadan kartaan staffna laydinama ogolo ee dhun laf gashay loo noqday ee meel kasta laga soo xiray ee yaaban ee shalaytan tahay waxaan idiin sheegaa Soomaaliyeed qofka daacadda ee lilaahiga ee wadada toos ku aadan ee wadada toos ku socdo Soomaaliyeed marka laga hor yimaado ee caqabad lagu noqdo ee la isku dayo in la jilaafeeyo dhibka ka dhasho iyo dhibaatada ka dhasho saan oo kale waaye shalay waxaad u dig iyo dam leeyahdeen farmaajo waa daarood aan iska dhicinno aan iska qabanno waana dhacay waana bazelay dalku oo dhibaato ku wada bahol ku wada gumaysi oo noo wada galitilis waaye dictatori waaye maanta maxaad haysaan maxaa faa'iidaha oo maanta aad haysataan ma ii sheegi kartaan maanta faa'iidada aad haysataan ii sheegi kartaan guri kasta baroora ka taagan guri kasta muruga haysato guri kasta dhibaato taagan guri kasta intaas qof oo shaqo la'aan dhex fadhiso guri kasta dadkeedii waa dhiban yihiin baahiyaa ka jirto dhibaato ka jirto dadku jidadka daadsan yihiin waa homeless magaalada Muqdisho farmaajo kadib waxaa la arkay dad homeless ah oo magaaladoodii homeless ku dhex oo dowladoodii ay saas yeeshay wana si dara inteeda leeg laakiin waxaan u baaqaa baarlamaanka Soomaaliya labadiisa gole iyo shacabka Soomaaliyeed madaxweynihii dalkan samata bixi lahaay ee badbaadi lahaay inuu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yaan loo dayma la'aan farmaajo waa in mar kale la siiyo fursad waayo waana huwa boqolkiiba boqol inuu soo noqon doono inuu ku guuleysan doono xilkan waan huba saas yaan shaki inka gelin qofna aysan shaki ka gelin anna shaki igama jirto boqolkiiba boqol aan huba in farmaajo uu noqon doono oo soo noqon doono dalkan dhibka hadda haysto iyo dhibaatada oo manaanay oo ku badbaadi doono diblomaasiyadiisa meel sare geey doono dib u habeyn ku sameey doono casriyeyn ku sameey doono amnigiisa saraakiishiisa amniga ciidankiisa shacabkiisa iyo diblomaasiyadiisa iyo shuruucdiisa oo dib u habeey doono Soomaaliya oo macna lehna oo taagi doono shacabka Soomaaliyeed ay arki doonaan oo indhahooda ay ku arki doonaan oo markaati ay ka noqon doonaan haddii Ilaahay yiraahdo in farmaajo shalay ay ku maageen dambi ee shalay ay ku maageen qabiil laakiin mar kale ay arkayaan farmaajiyada shalay ay qabiil ku weerareen inuu haddana dantooda ka shaqeynayo oo mustaqbalka caruurtooda dhisayo oo dowladnimadooda dhisayo oo canshuurtooda wax ugu qabanayo farmaajo waxaad ogtiin inuu yahay madaxweyne aan ku lahayn magaalada Muqdisho iyo dalkan aan dhul ku lahayn inuu yahay madaxweyne aan dhul qaadan ama aan dadkan ka macaashin ama hanti aan dibad geysan inuu si sax u wareejiyo hantidii loo dhiibay markuu xilka hayay hadday noqon lahayd hadiyado dibadda laga soo dhiibay hadday noqon lahayd dhul iyo hanti dowladeed dhammaan ayuu isku xiran ayuu si nabad u dhiibay oo waatan hal iga qabto hal iga xisaabtamo waxaan huwa nidaamka maaliyadda dalka Soomaaliya xilli farmaajo maanta dad IMF u qorto warbixin ama aad u qorto World Bank ana u qoray aniga Cabdifataax ayaa IMF warbixin u qoray ayaan World Bank u qoray wareystay iri hanaankii maaliyadeed xilli farmaajo wax musuqmaasuq miyaa ku dhacay lacagihii ama deeqihii doonariska Soomaaliya ay siiyeen halkay ku baxeen oo wallahi oo billahi oo tallahi waxay ii sheegeen deeq bixiyaasha ama doonariska dhammaan sida ay u baxday hantida Soomaaliya dhasiyay inay si sax ku baxday wada sax ku baxday deeq furan ayagana ay u geeyeen oo transparency ah oo wax corruption aan lahayn oo accountability ay lahayd isla xisaabtan ay ii sheegeen oo ay ku dhaqteen wallahi billahi oo aan markaan baaray oo investigation badan sameeyay aan soo waayay hanti dawladda loogu talagalay ha noqoto maxay financial aid ha noqoto loan ha noqoto gift kale ama ma aragtay hadiyad kale oo la siiyay in waxaas oo dhan ama revenue soo galay dawladda dakhli ama service ay qabato lacag ay ka soo qaado ama tax ay aruursan canshuur dhamaanto inay wada sax ku baxday oo aan la musuqmaasuqin oo hanaan daahfuran ay martay oo baarlamaanka og yahay oo hay'adihii World Bank og yihiin oo IMF og tahay oo UNDP og tahay oo hay'adihii African Development Bank og yahay dhammaan ay og yihiin
ayaan soo ogaaday sababta wasiir dowlane wasiir beylane wasiirkii maaragtay muxuu ahay beyle arrimaha dibadda ahay marna wasaaradda maaliyadda joogine waxa loo eedeynayo oo loo haysto oo loo xagaanayo inay been tahay ayaan soo ogaaday. beylana dalka xilliga uu joogo maaliyadda nidaamka maaliyadda dalka oo si sax ah oo hufan oo u hirgeliyay oo u shaqeeyay hantida hadda oo haystana hanti oo shaqaystay iyo hanti hore u lahaa ay tahay oo markii dalkan uu imaanayay oo xilalka uu qabanayay labada xilbo in la xisaabiyey ee hantidiisa la jeegareeyay ee check and balance lagu sameeyey ee hantidiisa la hubiyey ee background check up lagu sameeyey ee la ogaado hantida oo haysto ee magoortada iyo tan oo haysan la cadeeyay iyadoo dokumentiga qoranna loo gudbiyey hay-adaha caalamka on the recordna ay tahay oo la hayo oo baarlamaanka og yahay oo ra'iisul wasaarihii xilligaas xasan cali khayre og yahay oo maxamed abdullaahi farmaajo madaxweynaha og yahay oo ay og yihiin muxuu ahay guddiga garsoorka dalka ay ogaayeen oo maxkamada ay ogaayeen keligiisna ma ahan siyaasiyiin badan oo saas lagu sameeyaa jirto oo maxamed abdullaahi farmaajo ku sameeyey oo hantidoodii meel saaray oo dib u baaray oo yidhi hadda waxaa u shaqayn kartaan qaranka maadaama hantida aad leedihiin la ogaaday wixii hadda kadib aad samaysaan oo qalad ah waa la arki karaa hadda hanti dhacdaan haddii kale waa la ogaa karaa. marka wanaaggaas madaxweynihii lahay inaan si fudud uga tagno sax ma ahan Soomaaliya waana rajeynaa inuu soo noqon doono 100% shaki igama jiro inuu soo noqonayo. wixii talo iyo tusaale aad haysaan qaybta hoose ee commentiga kusoo qora sida aad u aragtaan xilliga farmaajo dalka siduu ahay iyo farmaajo dabadiis xaaladda sidii ay noqotay bal wixii talo iyo tusaale aad hayso fikirkaada way igula wadaagi kartaa qaybta hoose ee commentiga. intaan kusoo gabagabeynaa haddii janaalka ay ku cusubtiin subscribe saara haddaa u saarteen oo joogteen ku maasantiin intaan muuqaalkan kan ka xigo aan ku kulmi doono waxaan idin rajeynayaa khayr iyo caafimaad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.